Somalilan ayaa dhashay kulankeedii saddexaad waxayna la ciyaareen Kenya oo martigelinaysay koobka dadka baahiyaha gaarka qaba ee maqalka la', waana markii ugu horeysay oo lagu qabto dalka Kenya. Natiijada ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 5-2 waxayna guusha ku raacday dalka Kenya. Ugu horeyn waxaa nooga warbixiyay macalin Dirdhabe wuxuuna sheegay in la baray calanka Somalilan wadamo badan oo Afrika ka mid ah. marka warsa Ilaahay baa mahad leh. marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan shacabweynaha Somaliland gudaha dibadda meel kasta ay joogaan iyadoo ay ciyaaraha intooda badan ay ciyaaraha ay toos la socdeen. waxa anaga farxad weyn noo ah ka soo qaybgalka iyo magaca Somaliland inaan waxa way Afrika fara badan aan barro tina way noo suurta gashay waayo tirada aan ku soconay iyo waxa way maamulka iyo nidaamkuba te kuleyba wax nagu cusub ay hayeen hase ahaatee dawladda Somaliland way dadaashay dhalinyaradina way dadaaleen saddex kulan baan ciyaarnay kulankan u dambeeyay waxa mid saaxiibtinimo oo waxa way markii loo bogay akhlaaqda iyo ciyaar wanaagga dhalinyarada Somaliland in ciyaar saaxiibtinimo dambe Kenya loo sameeyay taana waxa weeye way dhamaa ciyaarta waa la kala badiyaa saddex iyo laba waxay ku dhamaatay 5 waxaan leeyahay tartamadu way sii socon doonaan sumcaddii ictiraafka Somaliland uu soo dhamaaday waxa halkan uu ka cadeeyay gudoomiye ku-xigeenka wuxuu ka sheegay maamulkayga wuxuu ka sheegay halkan in oo ninkii ugu sareeyay tartankan ee Brazilianka inuu ballan qaaday in sanad walba tartan kasta oo dhaca meel kasta ka dhacay Somaliland ka qayb galayso iyadoo ay ka qayb gali doonto ciyaaraha kala duwan dhamaantood sidaa daraadeed waxaan leeyahay shacabweynaha Somaliland guul baa u soo yeetay guul wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka kubadda cagta Somaliland Qadar Jilaal. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku suganahay Kasarani Stadium oo dalka Kenya Nairobi maanta ka dhacaysay ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Somaliland iyo dalka Kenya ah ciyaartaasi oo si qurux badan oo wanaagsan u dhacday waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ana ku hadlayaa afka shacabweynaha Somaliland iyo afka bahda kubadda cagta Somaliland oo dhan in dawladda Kenya ay si fiican oo qurux badan noo soo dhaweysay xiriirada kala duwan ee Kenya si qurux badan oo wanaagsan noola macaamilaan noogala duwanaayeen amba aan uga duwanayn dadka kale xiriirada kale ee dalalka kale ee ka maraya meesha waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa in kooxdaasi kubadda cagta ee ka socotay Somaliland lagu qiimeeyay kooxdii ugu akhlaaqda fiicnayd kooxdii ugu maamul iyo nidaamka fiicnayd taasina waxa weeye waa sharaf u soo yeetay Somaliland waa sharaf u soo yeetay bahda ciyaaraha Somaliland oo dhan waxaan bartayagana uga bogaadinayaa gudoomiyaha guud ee tartankan oo ballan qaaday in Somaliland ay si gaar ah u eegi doonaan hawlaheeda sanadka dambana ay ka qayb gali doonaan dhammaan ciyaaraha kala duwan oo dhan haday tahay kubadda cagta haday tahay orodada haday tahay baasidka iyo ciyaaraha kala duwan ee kala duwan oo dhan taasina waa sharaf Somaliland soo yeertay. ugu dambeyn waxa hadalka soo xiray agaasimaha waaxda qorsheynta Somaliland Mustafa Cali Nuur wuxuuna uga mahadceliyay wasiirka isboortiska dalka Kenya Dr. Amina Mohamed oo qayb weyn ka qaadatay in Somaliland ay ka soo qayb gasho koobkan. waxaanu joognaa garoonkii Kasarani Stadium oo runtii galabta ay ku ciyaarayeen dalka Kenya iyo dalka Somaliland oo runtii dalka Kenya ayaa naga codsaday inaanu ciyaar saaxiibtinimo la ciyaarno ciyaartaas oo maanta ay si fiican u ciyaareen ciyaartooygeenu wali ay wada dhaawac ahaayeen haddana si fiican bay u ciyaareen oo qurux badan aad iyo aad u qurux badan iyadoo wali ay ku dhamaatay ciyaartii 5-2 oo laba rikoor la nagu dhigay oo aan mataqaanaa filaynin laakiin ciyaartooygeenu si fiican bay u ciyaareen jumhuuriyadda reer Somaliland waxaan leeyahay nimankaas dadaal badan bay sameeyeen meelana inaan weligeen gaarin ayay gaareen imika waxaanu ka soo baxnay shira ninkii Braziliankii tartankan qabanqaabinayay ee ugu sareeyay ee hawshanba markii hore soo dhameeyay inuu noo ballan qaaday inuu sanadka dambana uu diyaar u yahay oo uu yiri Somaliland hore looma aqoon laakiin maanta meel walba adduunka waa laga yaqaanaa sanadka dambana waxa ka soo qayb gali doona kubadda cagta kamay soo qayb gali doonta waxa ka soo qayb gali doona kubadda cagta basketka orodka iyo dhammaan gameska imika ka wada socdo oo dhan way ka sanadka dambe ka qayb gali doonaan insha Allah ta'ala guul baan rajaynaynaa sanadka dambana sanadkana way dadaaleen ciyaartooygu. sidoo kale agaasimaha ayaa u mahadceliyay safaaradda Somaliland ee ku leedahay dalka Kenya maadaama ay qaadatay doorkeedii. Cabdi Fataax Jante, Stan Sports Cable, Nairobi, Kenya.